madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda beesha caalamka oo uu hogaaminayo safiirka midowga Yurub Ambassador Nicholas Blanchard waxaana kulankaasi laga wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin qabsoomida doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo kan deegaanka xalinta khilaafaadka gudida doorashooyinka qaranka iyo taageerada ay beesha caalamku ay ka geysato horumarka arrimaha bulshada doorashooyinka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa qoontada dhaqaale ee beesha caalamku ay ku taageeraan dalka jamhuuriyadda Somaliland. Ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa uu sheegay wafdigii ka socday beesha caalamku in ay xukuumadda ka go'an tahay qabsoomida doorashooyinku marka ay asxaabtu qaranku isla meel dhigaan suurtagalnimada doorashooyinka farsamo ahaan iyo sharci ahaanba. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa uu sheegay in gogoshii uu u fidiyay labada xisbi mucaarid ay weli halkeedii taalo. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa kulanka ku helinayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, shirkadooyinka golaha guurtida iyo wakiilada iyo ku-xigeenadooda mudane Saleebaan Maxamuud Aadan iyo Baashi Maxamed Faarax, Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle, Siciid Jaamac Cali, wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Liibaan Yuusuf Cismaan, la taliyaha madaxweynaha dhanka arrimaha dhaqaalaha Dr. Cismaan Sheekh Axmed, la taliyaha madaxweynaha dhanka doorashooyinka mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse. dhinaca kale wafdigii beesha caalamka ka socday ee uu hogaaminayay safiirka midowga Yurub Ambassador Nicholas Blanchard waxaa ku helinayay safiirka Talyaaniga Ambassador Alberto, safiirka Jarmalka Ambassador Annette iyo mas'uuliyiin ka kala socotay wadamada Netherland, Finland, Poland, Austria, Denmark, UK, qaramada midoobay iyo IGAD. ugu dambeyntii iyagoona kulankooda si wanaagsan iyo afgarad ugu soo dhamaaday ee maanta qasriga madaxtooyada uu ku dhex marayay madaxweynaha iyo weliba digii ka kala socotay beesha caalamka.